وأنك النبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابتي سمركي أركان عبد الله ابن مسعود وجد كرسارا لغيه سلغير ودوبان بيا هايان أي كوكس قصلين مركز النبي يقول محاد كوكس عشان بليش شيء ما لغيه ساير مقام بعد كوكس عشان والله ما كل دارتي النبي يقول بورت جبل الأحد هذه ميزانك كفل ساري لها لغها يا عبد الله ابن مسعود ميزانك كفدك لا ساري لها لغها عبد الله با كعسلان لها برسول يقول لأن إيمان باكبوحة معرفة إلهي باللغه سكبوحة قرآن باكبوحة فهم الدين أو صحيحة أيا عبد الله ابن مسعود قلبي جيسا يروحي سيديكي سيدعان جيسا كبوحة محايا لورقي وجوهر رأيي النبي محمد رميب وكمدها الله رالك النقضي كاسا عبسنا يأكل وحن كبغيا إن لا يقول قبت ماركتان الذنوب تيدي waxaan doonayaa oo nafsadaydu ay doonaysaa waa ilaahay naxariistiisa Allah inoo dambi dhaaf qalbi shaakir Allah ina siiyo qalbi mahadnaqa ولسانا ذاكرا يعرب ذاكرة أو حسك إلهي كوكو ينمر والبا عرب ويريحي لكن أعمال وحوصوت توريا مرنا الجنة أتقول دواني يسد مرنا النار تقول دواني يسد إسلا عرب كانوا مرنا بين شيقا مرنا رنت شيقا مرنا إلهي بوحسا مرنا معصية هذا المعصية أيكوها الله marna dadku caayaayo naar baad ku gal caayda bini aadanka aad caayaysid marna dadku wanaag u sheegaayo wanaag umada aad u sheegaysid jannad ku gali isla carabkan weeyaan marka carabkeena waa inaan ku qoynaa ilaahay dhikrigiisa saxaabigii nabigeena u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri sharaa'icda islaamka igu baahdee amal aan qabsada nabi allah ii sheeg buu ku yiri la yazaalu lisaanuka radbun bidhikrillah يونا كتجن عربكاغو ينو كوقينا على مر والبا إلهي حسكي سبو نبيكو كويلي مركا ذكر اللسان بانو باهنا هنا برنا عرب كينا ذكر اللسان سبحان الله وبحمده هذا مرتداد جيت مرا جنادا لغا بيري استغفار هذا التي مادد ذنبي ودن با إلهي كا دافيا غففكاغي ودن با لو بدليا حسنات أذكرت أنا وان بدسنينا صلي نبينا عليه الصلاة والسلام يستغفرت يا أذكرت ما ركتاني مسنونة نبينا كسو لقصو وري وان بدسنينا ألا أدلك بأحب الكلام إلى الله أبو ذر الغفاري بالنبي كويري ما كنت عملك إلى تسلوك جعل بدنيه إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده وعبادة قولك تإلهي أكتسلوك جعل بدنيه بالنبي وعبادته وسبحان الله وبحمده ذكر إلهي بدي عائشة رضي الله عنها وحاك لي نو شيكتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نولشيس انت أبدا ذكر بوها ذكر الجوارح نوا محي هدو النبي مسكيت سوق لا يدعى الله خرستولها أيضا هو الذكر هدو مسكيت كبحا يدعى الله خرستولها هدو أقل كقلا يدعى الله خرستولها هدو أقل كصبح دعى الله كصبح بولها هدو سوق مر دعى الله مربولها هدي بالصوبلة بشهر كدعى الله خرستبولها هدو دار حنانا يدعى الله خرستبولها هدو ريرجس الله سيحنا يدعى الله خرستبولها هدو قبل كدعى الله خرستبولها هدو سوق عورده كسوق دعى الله خرستبوها هدو واقو برينا دعى الله خرستبولها يذكر الله نبي إلهي بحسا ينولشي صدن با marka noloshiisa dhan taacay hayd kullu muti'in dhaakir bi culimadu yiraahdeen qof kasto ilaahay adeecsan waa dhaakir dhikrigu kan carabka kaliya maaha ducooyinka nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ka soo arooray oo dhan ku soo arooray sunnadiisa waa inaan barano imaam an-nawawi rahimahullah kitaab dhan buu noo qoray leeyahay magaciisa kitaabul adkaar adkaartaasaan akhrisanayna adkaartu waa xisn adiga ku ilaalin waa dhufays
haddaad dhufayska ku dhacdid shaydaanka waad ka nabadgashay xasadka waad ka nabadgashay saxarada sixirkooga waad ka nabadgali gaalada iyo maaragtaane sharkooga waad ka nabadgali waxaad noqonaysaa qof maxfuuda oo xagga ilaahay laga ilaaliyay baad noqonaysaa haddaan adkaarta akhrisanno bal xadiiska akhriso uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka gurigiisa marka uu ka baxaya ducada akhrista bismi illaahi tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah yuqaalu lahu hudiita wakufiita wawuqiita watanaxaa canhu shaytaan ninka aqalkiisa markuu ka baxaya buu nabigu yidhi ducada akhrista waa ducadee besenka ilaahay baan aqalka kaga soo baxay tawakaltu cala allah ilaahayna talada waan u dhiibtay laa xawla walaa quwata ila billah xeelad aan macaasida aan kaga leexdaana anigu malihi awood aan taacadda ilaahay ku qaban karaana ma jirto ilaa ilaahay oo doona mooyaane ninka ducada akhrista buu nebigu leeyahay malag baa u yidhaahdaa hudiita waad hanuuntay wa kufiita wixii adduunyada xaajaad iyo baahi kaaga daadsanaayoo dhanna waa laguu qabto waa laguu daboolay oo baahidaadii cid kalea kuu qabatay wa uqiita shar iyo masiibo iyo balaayo wixii adduunka maanta loo qadaray bini aadankana adiga waa lagaa leexiyo waa lagaa ilaaliyey shaydaankiina meeluu ku soo mara ma jirtaa lagu yidhaahdaa bal ducadaa ka warrama waddankan intaan maraynay dad badan baa masaajida la noogu keenay ubad yaryar oo dhakhtarradu ay yidhaahdeen xanuunkuuga garan mayno dhakhtarradii waddannadan iyo jarmalka meel walba dhakhtarradii intoo lala soo maray ayaa la yidhi kan adeer ma garanayn xanuunkiisa iska haysta sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadday muslimiintu qaataan ay ku dhaqmaan balaayo badan oo dadka ku dhacaysa ilaahay waa ka ilaalinaya laanna sunnaha nebiga qofka ku dhaqma dhufays buu kaga dhacay shaydaanka iyo sharkiisa lidaalika adkaarta nebigeenna han baranno insha allah dhahda han ku dhaqanno weliba khaasatan dadkeena waddankan jooga bidaat dadka waddankan soo galayow adkaarta isku ilaaliya qul wallaha iyo mucaawadataynka salaada maqrib markii laga baxana saddex jeer akhrista bacda salaat alfajrna saddex jeer akhriya salaad kastoo farada marka laga baxana hal mar akhrista habeenkii markaad jiifanaysana kitaabkan xisnul muslim waa kitaab xajmigiisu uu yar yahay laakiin macaani weyn buu xambaarsan yahe kitaabkaa yar intood la soo baxdaan xaafadaha dhigoo dumarkana ha la baro ubadkana ha loo akhriyo aqalkana aayatalkursiga ku akhriya habeenka markuu qofka muminku jiifanaya buu nebigu yidhi aayatalkursiga qofka akhrista hee habeenkaasoo dhan waxaa ilaalinaya buu nebigu yidhi maaragtaane xaafid waa lagu ilaalin malag ba ku dul taaganoo ku ilaalinaya shaydaanku meeluu kuu soo mar heli maysid marka carabkeenna carab daakira allaha ka dhigo dikrigu iimaankana uu quweeyaa calayka bidikri illahi wa tilaawati alqur'an fainahu dikrun laka fi lsamaa wa nuurun laka fi lardi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam yaa abaa dar waxaad ku dadaashaa ilaahay xuskiisana badso qur-aanka akhriskiisana badso buu nebigu ku yidhi qur-aanka akhriskiisa laazim arladana wuxuu ku noqonayaa qur-aanka iyo dikriga aad badsatay dikrigaas wuxuu ku noqonayaa nuur iyo iftiin buu ku noqonayaa samadana waa laga hadalhayn buu rasuulku ku yidhi samada ayaa ka hadalhaynaya allahu rabb alcaalamiin fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun ilaahayna abuuray baa inagu le xusa oo i hadalhaya mar walba aniguna waan i hadalhaynayaa haddaan ilaahay mar walba aan hadal qaadno oo gaadhigaad fuulaysa aad ku hadal qaado gaadhigaad fuushay gaadhigu dikri buu leeyahay subxaana aladii sahara lana hada wma kuna lahu muqriniin wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun markaad ka daadegaysana ducadii aad allahuma anzilnii munzalan mubaarakan wa anta khayru lmunzaliin acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq haddaan ducooyinkaa baranno waa sunno nebi maxamed ka sugnaaday weeyaan nolosha oo dhan waxay noqonaysaa cibaaday ku noqon noloshaadu gaadhiga aad raacday markaad sunnaha ku raacdo cibaada lagu qorayaa jiifka aad jiifatay haddaad sunnihii nebi maxamed ku jiifatid cibaada lagu qorayaa cuntadaad cunayso haddaad sunnihii nebiga aad ku cuntayso cibaada lagu qorayaa geerida nagu dhacday haddii sunnihii nebiga la waafajiyo
cibaadii ajar baan ka helaynaa arooskaaga haddaad sunnihii nebiga ku dabaqdo cibaadaa lagu qorayaa habeenkii reerkaaga markaad la jiifanayso haddaad sunnihii nebiga intood culummada weydiisid aad kula jiifatid ajar iyo sadaqa lagu qorayaa tarbiyadda awlaadaada haddaad diin ku tarbiyadaysid ajar iyo cibaada lagu qorayaa noloshoodna waxay noqonaysaa cibaada ku noqon noloshaadu laakiin haddaad iska noolaato bilaa sunna waxay ka dhigan tahay caada ku nool baa tahay caada ku nool caadadana ajar lagaagama qorayo ogow inagu maanta dad badan oo muslimiina diin waxay u fahmeen salaada masjidka ay soo galayaan tukanayaan salaadu waa bidaaya waa meesha diinta islaamka laga bilaabo weeyaan meesha ku dhamaata maaha diinta islaamku waa dhaqan ka bilaama caqiidada kuna dhamaada akhlaaqda wanaagsan ogow caqiidadu ka bilaama iimaanka iyo tawxiidka diinta islaamku ay ka bilaabantaa meesha ku dhamaatana waa tabiicada wanaagsan buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan cabduhu wa rasuluhu wa iqaami asalaa wa iitaa'i azakaa wa sawmi ramadaan wa xaji lbeyt man istadaaca ilayhi sabiil xadiiskaa waxa uu tilmaamayaa bunyaan ibtidaa buu tilmaamayaa waa meesha diinta islaamka ay ka bilaabantay seeska marka aqalka la shubo kaabadaha la dhisaya buu ka bilaabay nebigu buniya waa rukunadii islaamka weeyaan uu islaamku ku taagan yahay xadiiskana nebigu waxa uu sheegay bucithu liutamima makaarima alakhlaaq aniga adduunka waxaa la ii keenay buu nebigu yidhi akhlaaqda teeda ugu wanaagsan inaan nolosha bini aadamkan kusoo dhammaystiro marka diin baa loo baahan yahay ummad diin ku dhaqmaysa inaan noqono diin haddaan ku dhaqanno nolosheennu nuur bay noqon nuur calaa nuur nuurun calaa nuur baa noqon